بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال halkani warbaahinta halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada aan idin soo gudbin doono waxaa kamid noqonaya geerida mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo la xaqiijiyay kadib dooni ay saarnaayeen oo maanta degtay Xasan Cali Khayre ra'iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay wafdi ka socday qaramada midoobay maxay ka wada hadleen waan idin soo gudbin doonaa maalintii saddexaad waxaa magaalada Muqdisho gilgilay dibadbax xooggan oo ay dhigayaan darawallada kaxda gaadiidka loo yaqaano PLka madaxweynaha maamulka Jubbaland oo saacadaha soo socda ku dhawaaqaya golihiisa wasiirada qodobada ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 28 bisha 10 Oktoobar 2019 oo diyaar garooba saaxiibayaal faafahinta qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran channelkan subscribe calaamada kambalka furta muuqaalkana saaxiibayaal si share gareeya aynu ku bilownay geerida mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabelle ayaa la xaqiijiyay kadib doon ay saarayeen oo maanta degtay dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxay shaaciyeen tirada dadkii ku geeriyooday doontii ku qalibmatay magaalada Beledweyne xilli dadkaasi ay ku sii jeedeen deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne kadib markii Beledweyne ay ka baxeen waxaana la sheegayaa in doontaasi ay saameeyeen fatahaad webiga uu sameynayo dadkan doonta saarna ayaa waxa isugu jireen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle kan degmada Beledweyne iyo dad shacab ah oo doonta saarna qaarkoodna waa ay geeriyoodeen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maamulka Hirshabelle Maxamed Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in ilaa 7 ruux ay ku geeriyoodeen doontii markii doontu ay degtay dadkaasi waxaa kamid ah Dahab Xasan oo kamid ahayd la taliyaasha madaxweyne Maxamed Cabdi Waare Sharmaarka oo isagana ka tirsanaa xafiiska dowladda hoose magaalada Beledweyne deeqa oo iyadana kamid ahayd gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada iyo dad shacab ah doonta saaraa markii doontu ay qallimatay waxaa gurmad la sameeyay loo guuleystay in la soo badbaadiyo xubno ay ku jiraan gudoomiyihii maamulka gobolka Hiiraan waa gudoomiyihii hore maamulkaasi Cabdi Fataax Xasan Afrax iyo duqa magaalada Beledweyne Safiya Sheekh Cali Jimcaale iyo dad kale magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa soo ifbaxday saakay barqadii hore in dooni ay saarnaayeen ay degtay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle gaaraan kal Beledweyne waxaana dadka shacabku ay bilaabeen in dadkaasi u gurmadaan diyaaradaha qumaati u kaca ayaa waxaa lagu soo waramayay saacadihii la soo dhaafay inay gaaf wareegayeen hawada sare magaalada Beledweyne waxaana ay baadigoob ugu jireen soo badbaadinta dadkan ku degay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kadib saameyn ay ku yeeshatay fatahaadii ay sameeyeen biyaha webiga Shabeelle dooni ay saarnaayeen ay qalibantay duqa magaalada Beledweyne iyo mas'uuliyiin kale oo kamid ah gudoomiyihii gobolka Hiiraan ayaa la soo badbaadiyay mas'uuliyiin kale oo halkaas saarnaa hase yeeshee tirada dhimatay ayaa ilaa hadda waxay maamulka Hirshabelle ku sheegeen ilaa 7 ruux halka qasaaruhu intaas uu ka badan karo dhibaato xooggan ay wajahaysaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan dowladda federaalka Soomaaliya waxay beesha caalamka ka dalbatay inay u soo gurmadaan dadkan ku dhibaataysan magaalada Beledweyne waxaana guud ahaanba magaalada Beledweyne fariistay biyo aad u xooggan halka dadku ay u barakaceen deegaanka Ceel Jaalle oo duleedka magaalada Beledweyne deegaankaasi waxaa ka jirta sida dadku ay ku soo waramayaan xaalad aad u liidata waxaana dadku ay wajahayaan dhibaatooyin xooggan oo ay qabaan inta badan carruurta ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dhibaato xooggan ay wajahayso kadib markii shuban biyo dalkaas uu ka dilaacay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka ayaa waxay wadaa gurmad dadkaas lagu samata bixinayo maamulka Hirshabelle ayaa ka horeysna magacaabay guddi ka shaqeeya arrimaha fatahaadda la tacaala waxaana guddigaasi madax looga dhigay wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle inta badan bulshada ku nool caalamka ee Soomaalida waxaa lagu baaqayaa inay ka qayb qaataan oo gurmashada dadkan ay dhibaato u geysanayaan fatahaadda uu sameynayo webiga Shabeelle Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda Galmudug ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socday qaramada midoobay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa uu magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug kulan kula qaatay wafdi ka socday ciidamada nabadgelyada AMISOM oo isugu jira saraakiil iyo madax kale waxaana ay ka wada hadleen qaabkii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada Dhuusamareeb kaasoo maalmihii la soo dhaafay ahaa mid aan wanaagsaneyn maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay ciidamada fara badan ciidamada ayaa waxaa la sheegayaa in dhibaato xooggan ay ka wadaan magaaladaasi waxaana jira is-afwaham u dhaxeeya
dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadkaasi ay geysay iyo kuwii Ahlus Sunna wal Jamaaca ee halkaas hore ugu sugnaa. ciidamada AMISOM ayaa waxay sheegeen in la shaqeyn doonaan maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa la sheegayaa in laga dalbanayo in ciidamada ay ka qaadaan magaalada Dhuusamareeb dibna loogu celiyo magaalada Muqdisho. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay magaalada Dhuusamareeb geysay ciidamada fara badan kuwaas oo la sheegayo inay sugayaan amniga goobaha ay ka dhacayso doorashada dowlad goboleedka Galmudug. magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa la qorsheynayaa inay martigeliso doorashada madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. hase yeeshee waxaa jirtay ilaa hadda is-afwaamo ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda Ahlus Sunna wal Jamaaca. dowladda ayaa waxay magacawday guddi ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka dardargeliya, halka maamulka Ahlus Sunna wal Jamaacana ay kor ku dhawaaqeen maamul ama guddi ka shaqeeya arrimaha doorashada. waxaana jira isbarbaryaa ka dhashay qaabka loo xalinayo doorashada dowlad goboleedka Galmudug. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa hadda waxay ku jirtaa daalaahay qaabkii halkaasi ay uga dhici lahayd doorasho dowladda federaalka Soomaaliya garwadan ay ka tahay. maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay kaga baxday qodobo hor loogu heshiiyay ilaa haddasa waxaan jirin qodobada dowladda federaalka Soomaaliya ka baxday oo la ogeyn. dowladda ayaa waxa ay sheegaysaa ama ay wacd ku martay in Galmudug ay ka dhici doonto doorasho loo dhan yahay oo Galmudug raalli ay ku tahay. Ahlus Sunna waxaan la ogeyn qaabka ay wax ku xalin doonto, ma waxay raaci doonto dowladda federaalka Soomaaliya qaabka ay u wado, mise waxaa jiri doona hab cusub oo maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca ay wajihi doonto. maalintii saddexaad ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya dibadbax xoogan oo ay dhigayaan beeraleyda ka shaqeysa gudaha magaalada Muqdisho. waxaa maanta dhacay dibadbax xoogan oo ay dhigeen darawallada kaxeeya gaadiidka loo yaqaano BLka oo dadweynuhu isticmaalaan. darawalladan ayaa waxay ka cabanayaan canshuur dheeraad ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ku soo rogtay. waxayna sheegayaan in darawalladu aysan haysanin wadooyin ku shaqeystaan, canshuurtaana aysan bixi karin. dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada ayaa waxay isku dayeen inay kala eriyaan, hase yeeshee dibadbaxayaasha oo gacan ka helaya shacabka rayidka ayaa waxa ay sheegeen in aysan aqbali doonin in rasaas loo kala ceriyo. waxayna sheegeen inay soo bandhigi doonaan waxyaabaha ka dhex guuxaya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay maalmihii la soo dhaafay wajahaysaa dhibaato xoogan maadaama shacabku inta badan ay dibadbax dhigayaan markay wax culays dareemaan. beeraleyda ayaa waxay sheegeen inaysan bixin karin lacagahan dowladda federaalka Soomaaliya ku soo rogtay haddii aanan wax laga bedelin xirnaanshaha wadooyinka iyo qaabka shaqadu haatan u socoto. magaalada Muqdisho inta badan wadooyinkeedu ayaa waxay kuwa kala xiran, waxaana dhibaato loo qabaa waxa lagu yiri kala wareega maadaama beeraleydu aysan arinta u dul qaadan karin. magaalada Muqdisho ay maalintii saddexaad maanta ka dhigeen dibadbax xoogan kaasoo si weyn looga dareemay gudaha magaalada Muqdisho. ciidamo u tababaran ka hortagga rabshadaha ayaa waxay kala ceeriyeen dibadbaxayaashii maanta isugu soo baxay wadooyinka weyn ee magaalada Muqdisho. waxaana barnaamijkaas oo mid ka soconaya 5 kilomitir iyo Soobe, waxaana laga dareemay halkaasi dibadbaxan ay dhigeen gaadiidleyda loo yaqaano BLka ee magaalada Muqdisho ku shaqeysata. dowladda ayaa waxay haatan wada qorshe ah inay furto wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana warar hoose aynu helayno sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya haatan ay bilaabayso qorshe cusub oo lagu furayo wadooyinka waaweyn ee xiran ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. wadooyinka haddii la furo ayaa waxaa laga yaabaa in ay hoos u dhacdo cabashada shacabku ay qabaan maadaama xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho dhowr jeer cabasho laga muujiyay. dowladda ayaa waxay guddi u saartay furista wadooyinka, waxaana guddigaasi magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee dhawaan la magacaabay Cumar Finish. hase yeeshee ma jirto ilaa hadda guddigaasi tallaabo muuqatay oo ay qaadeen. ilaa hadda waxaan la ogeyn qaabka ay wax ku xalin doonaan iyo halka hawsha ay ka bilaabin doonaan. waxaase gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee haatan talada gobolka Banaadir maamulaya markii uu ka hadlayay xaflad lagu caleema saaray uu sheegay inuu furi doono wadooyinka magaalada Muqdisho aysan jirin doorin mar dambe waxa loogu yeero kala wareeg oo magaalada Muqdisho ka dhaca. shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa markii hadalkaas uu ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo riyaaqay, waxayna sheegeen in arrinta ay tahay mid si weyn loo soo dhaweeyo. inta badan wadooyinkan xiran ayaa waxa dhibaatada xoogan ku qaba shacabka, waliba ay jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo wadooyinkaasi marka qaar laga celiyo. hase yeeshee arrinta ayaa waxa ay tahay marka mas'uul la celiyo inuu la hadlo warbaahinta
isagoo aad uga xun hase yeeshee shacabka ayaan jirin cididooda xaqoodan u dhicisa dowladusa ma furi doontaa wadooyinkaasi mise sidaanay xaalku sii ahaan doonaa waa su-aal dad badan ay isweydiinayaan haddii dowladdu haatan sidaan ay kusii wado xaalada magaalada muqdisho waxa ay dowladdu weyn doontaa taageerayaal fara badan oo xushmad u haya dowladda federaalka Soomaaliya shacabkuna waxay yihiin kuwa aan ku qanacsaneyn qaabka haatan wax u wada dowladda Soomaaliya marka loo fiiriyo wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho inta badan wadooyinka magaalada ayaa waxay yihiin kuwa kala xiran waxaana jira wax loogu yeero kala wareeg oo dowladda federaalka Soomaaliya la rabo inay wax qabato maamulka haatan shaqeeya ee gobolka Banaadir waxa laga dhur sugayaa hadalkiisii ah in uu furayo wadooyinka xiran ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya wadooyinkan hadii la furo ayaa waxa uu kasban doonaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho taageero fara badan oo shacabka ay muujiyaan maadaama dib haysta shacab uu ka dul qaadayo guud ahaan warkii aad kala socoteen warbaahinta halbeega wararka intaasi ayaan ku soo koobaynaa nabadgelyo